waxaan rabaa inaan caddeeyo ummaddan u caddeeyo xukuumaddii anaga aan rasaalaha ka ahaa ee hadda labadii sano ugu dambeysay in anaga wax heshiisa haba yaraatee ama ha ahaato tan military ama ha ahaato tan ganacsi ee balbalaa ama boosaas horta anaga wax heshiisa aan galnay haba yaraatee ma jiraan kuwii igu horreeyey dee uma hadli karo waxaa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay laakiin labadii sano anaga aan joogin wax heshiisa aan la galnay haba yaraatee dowladda imaaraadka ah ma jiraan marka waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan habka hadda wax loo maareynayo ee xanta ah in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaxatay iyo qoladii waxaan samaysay qoladii heshiiska gashay intaba intee way cad yihiin qof wax qarin karaa haweenaatay ama inkari karaa ma jiro intay wax galaan qoladii la gashay in dowladda imaaraadka si official ah inta loo warsado intay ay ka wada hadlaan dowladda Soomaaliya wax heshiis ah oo hordhaca oo 2016 dhacay oo aad ka waraysan miyaa jira ama dhaxmaray Somaliland iyo Imaaraadka ama dowladdaadii ay wax ka ogeed annaga dowlad ahaanteen aan ka hadli karaa wax heshiis oo dhaxmaray oo arrintaas ku saabsan haweenaatay ma jirin ama isfahan baa ahaatee wax isfahan ama heshiis annaga aan la galnay oo dhinacaas ma jirin heshiisyadan waxaan u maleynayaa in la siixay 2012 March markii annaga aan ka tagnay waa laga yaabaa wada hadalkeeda tan oo ganacsi inay soo socotay ee 2016 laakiin hawa yaraatay xukuumad ahaan annagana noloma keenin wax gaar aan kala hadalno jiro isfahan aan isla gaarno jiro ilmana ahadee waana sheegay sida waxyaabaha dhan sharciyada loo maray leeyahay haddii qof ka mid ah uu xataa arrintaas ay kala hadli lahaayeen waxay ahayd in golaha wasiirada la keeno laga wada hadlo arrinta sharciyan loo adres gareeyo barnaamijka la geeyo marka wax arrintaas ku saabsan hawa yaraatee shakhsiyan gaar ahaan xukuumad ahaan loo galay aniga ogsoonahay hawa yaraatee ma jirto dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wax ay heshiiskan kala socoto oo aad ogtahay miyaa jira ma ogi hortaan runtii dee qolayba ayaga hadda waqtiga iyo hadda yimaadeen ayaa badankooda la siixay heshiisyadan iyagaana qolay ay u taallaa hadda in ay arrintaas ka galaan maaragtay baarlamaanku waa tii uu ka hadlay oo uu runtii yidhi arrintaas waa sharci darro dee qolay baarlamaanku hadduu yidhi madaxweynaha ag taallaa asaga haddii waxaa laga rabaa ama inuu siixo ama baarlamaanku cesho maaragtay uu arrintaas ka hadlo laakiin annaga xukuumad ahaan labadii sano aan joogay haba yaraatee heshiis aan galnay ama isfahan aan galnay oo arrimaas ku saabsan ma jirto Umar Cabdirashiid marka la eego rag adigu aad ka mid tahay oo siyaasiyiin ah waxaa marar badan lagu eedeeyaa inay horboodayaan oo ay taageerayaan dalal shisheeye sida Imaaraadka oo kale danaha iyo ujeedada ay leedihiin ay tahay in aad fashilisaan dowladda hadda jirta arrintaas ma qabtaa niyo waxa yaab leh oo runtii arrimahan yaab leh waxa horta waxaas sheegaya waa meediada yaa ka dambeeya waxaan aragnay runtii dad dowlad ku jira oo yani meediada u isticmaalaya dad kale oo siyaasiyiin oo banaanka jirta arrintaas horta waxay keeni doontaa arrin fool xun weeye keeni doontana runtii in dhaqanka siyaasadeed ee dalkan 2012 ka hor waxaan dhaqankan ma jiro midaada kaleetana meediada waxaa loogu talagalay in xukuumadda markaas jirta ay sideedaba jeegarayso oo ay waxa ka khaldamo waxa kale laakiin weli hadda ka hor uma dhicin in dad xukuumad ku jira ay u isticmaalaan meediada siyaasiyiin dowladda joogta ama lagu mashquulo siyaasi dowladda jooga of course waad ka hadlaynaa annaga siyaasiyiin aan nahay dalkan doorashaan keennay kumilgaalaan ka saarnay meel baan soo istaajinay ay doorasho ka dhacday dalka 1960 kadib in legacygeena markasta wixii khatar u ah ama dhib keenaya waan ka hadlaynaa laakiin haddaa ka hadashid ra'yigaada dhiibatid dee dhaqankii aan hadaayad aan sheegayo maalin hore ahaa may qofkii iga fikir duwan hala gaalaysiiyo yani al-shabaabka yani fikirkooda iyo kaleeto gaal inta laga dhigo yani hala taqooro meeshaan ma taalo sida waa xaraga la wada hayo waa siyaasadan marka waxyaabaha inta badan laga sheegay waxaad u aragtaa inay dacaayado aniga iyo dad kale waxa laga sheegaya waa dad iska dacaayada dad ayaa khalad iyo juhdi ku bixinaya in ciyaal yar oo dhalinyaro ah oo runtii aan isleeyahay haddaan waxaan la gelin product fiican lahayn ama website-yo aan hadda jirin oo jira oo runtii yani hadda noqday website-yo wixii qofkii uu maaragtay wax siiya wixii rabaan u qorayaan runtii dalku waa ka wanaagsanaa inta aan waxaan qabaa mas'uuliyad
mas-uuliyad journalism in waddankan dib loogu noqdo